marka laga hadlayo waxa laga hadlayaa waxa weeye in awoodda isticmaalka awoodeed inay ku soo ururto gacanta dawladda taa macnaheedu maaha in military kaliya inta la abuuro xuduudaha la sugo macnaheedu waxa weeye in la helo military-gu dee doorka ay hayaan iyo caawa halka ay marayaan dhammaantiin waad ka dharagsan tihiin oo waxaa la kulaalayaa ceelbuur iyo galhareeri iyo meelaha aad garanaysaan ee in badan gacanta dawladda ka maqan laakiin waxaa la rabaa marka guulaha military-gu ay gaadhaan military-gu inay xiriirooda ku xeroodaan oo ay amniga guud ee dalka sugaan laakiin amnigii gudaha iyo isticmaalkii awoodee dawladdu ay ummadda ku kala ilaalinaysay kuna ilaalinaysay waxaa la rabaa doorkaa inay bixiyaan booliiska soomaaliyeed bilaysku sida hadda mar dhaweyd baanu xijaab isweydiinay oo wax la yidhi booliisku wuxuu abuurmay ama la unkay 1943 waaba hay-ad ka weyn qarannimadeeda hay-ad ka weyn weeye qarannimadeeda laakiin qaranka soomaaliyeed 1960kii markii labadii qaybood ay isu tageen ayaa salka loo dhigay u aasaasay boliiskaasi berigii hore wuxuu ahaa boliis centralized oo awooddiisu ay ku urursan tahay taliska guud ee hadda halkan ku yaalla xilligaa iyo waayaha waynu soo dhaafnay hadda boliiska soomaaliya sida laysku afgartay shirkii madasha wada tashiga ayna ku shaqeeyaan boliiska soomaaliyeed waxaa weeye boliis laba heera heer maamul goboleed iyo heer qaran awoodo kala duwan oo iskaabaya ayay leeyihiin walaalayaal waxaynu rabnaa in taliska boliiska soomaaliyeed mudane generaal sulub oo hadda hawshaa culus loo igmaday inay keenaan hal-abuurkii lagu baahin lahaa boliiska dhammaan geyga soomaaliyeed khaasatan meelaha hadda khawaariijta laga horreeyey wuu xusay taliye xijaar in ilaa iyo jannaale iyo maarkaysaaye aadan yabaado hadda boliisku ay joogaan